marka hore waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed lacagta diyada ah ee kontonka halaad ee gabadha shilka ku dhimatay baabuurka uu waday Sharmaarke Cabdinaasir Sharboy aniga bixinaya haddii dadkii uu ka dhashay ay ugu dambeyn biri bixi waayaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناسدي لهنتي بقى خيار تقاليد ميكسون قد علي ساكت شوكتان halkaad naga dooso channelkeena ala warcawile walaalkiina waa idile soo dhawaada muuqaalka like tayga dhisa oo like gareeya macnaha like tan iyo kun ka soo dagin way idin xasuusinaya oo idigu boorinaya because markaan aamuso kuma gaarsiisaan laakiin marka hadlo waa dhaafisaan marka kadaya ka seexanina hasho way idin xasuusinaya la dhaca like-ta way idinka kuwii horena macalla soo dhaca oo balkar soo kiciya waxaan inoo wada walaalkii Sharmaboy oo loo ururinaya lacag macnaha adan YouTubero horta dadka fanaaniinta ahi ama dadka bulshada magaca ku dhaxle ama dadka talentiga leh macnaha marka ay bilowga yihiinna reaction baan ka bixinaa dadkan soo bandhignaa markay qarxaana reaction baan ka bixinaa oo nagaba ku sii qarxnaba marka Sharmaboy wuxuu kamid yahay dadka sanadkii ugu dambeeyay macnaha madaxa la soo kacay ee media ahaantii inkastoo in badan aan kaga soo horeynay oo aan YouTuber ka soo horeeyay jiraan balse maanta wuxuu noqday stariska ku xisaabtama YouTubers ko dhani markuu hees soo saaro ama barnaamijka qoseeya oo soo dhaxo maanta waxa loo baahan yahay dadkii reaction ka bixin jiray dadkii Sharmaboy maxay ahayd barnaamijkiisa falaqayn jiray sida aniga oo kale sida isla hadana aniga oo kale uu reaction haystiisana ka bixiya in la garab qabto page kan lacagta loogu oranay ama account-ka lacagta loogu ururinayo bartana runtii ay lacagteedu ay marayso 2000 adu 3000 wax yar la laakiin 2300 bay maraysaa dhowr jeer baan screenshot ka qaaday mar kun iyo dheeraad bay maraysay imika 2000 iyo dheeraad bay sii socotaa hadhow laga yaabo in 3000 iyo wax tagto waan idin soo bandhigi doonaa imika 2000 iyo dheeraad bay maraysaa haddii ay 2000 iyo dheeraad ku qalashaan waan idin soo bandhigayaa haddii ay dhaaftana waan soo bandhigayaa 4 iyo 5 gaadhaba haddaan kaba badnaaninba halkan ay noo soo dhigi doonaa linkiga marka imika marka muuqaalka soo deynayo inta ugu dambeysay lacagtu ay marayso ay taagadahay inta kadib waayo way qurux badan tahay maadaama la xiray sababta loo xirana ay tahay gabadhii dhimatay Allah u naxariiste in la kala qaadanayo diyo ama mag la isla gartay kadibna meedkii la aasay inanti haba la aasay isagana la soo deynayo marka diyada iyo magta la kala gudoomo ee la kala dhamaado kadibna isagana la soo deynayo oo xarigiisaas uu yahay inuu yara xidhnaado ama hayn ay tahay inta lagu kala baxayo diyadaas ama magta maadaaba ay ahayd qadar oo ay ahayd macnaha de kasmayhayna kama ay ahayd marka maadaaba kama ahayd macnaha de wax dila ama wax tiir leeyahay la soo istaajiyo ee taas horta ma jirto waxaan arkayay muuqaalsna daahir cali soo galiyay oo uu leeyahay macnaha waxa ka bixinaya lacagta gabadha magteeda Sharmaboy sida muuqaalkan ama codkan muuqaalkan uu soo dhigay macnaha codkiisa irtii la dhageysta marka hore waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed lacagta diyada ah ee kontonka halaad ee gabadha shilka ku dhimatay baabuurka uu waday Sharmaarke Cabdinaasir Sharboy aniga bixinaya haddii dadkii uu ka dhashay ay ugu dambeyn biri bixi waayaan oo lacagta laga dhiibi waayo biri oo kontonka halaad wax macnaa kuma dhisne ay tagaan majeerteen wal Umar Maxamuudiya wa Maxamuud Saleebaani tagaan birito ay ka dhiibi waayaan lacagta $50,000 ama $60,000 ama $70,000 aan bixinay ana lacagta aniga bixinaya waa laba shay dadku committee ugu soo qorayeen committee 2000 iyo dheeraad buu soo daahir cali show inta ugu badan wax la ma sha Allah laakiin si dadku laba qaybood ba ka fikir duwanaa marka laga haro inta lahayd waa si fiican labada qaybood kala mid waxay lahaayeen ma naga hubtaa daahiro macnaha ma afka un bah qaybta kalena waxay lahaayeen waxa waa bahdil aad bahdilayso ninkaas dadku ka soo jeedo macnaha de waligeed ba la arki jiray qof qadar ay ku dhacdo ama qof xitaa kas u dila marka macnaha kii kas dadka u dilay kas dadka u leynayay bitulkiis wax ka bixiyaan waligeed baana de marka qof wax dilo dadka tulkiisu ay wax ka bixiyaan ma jirto qof leeyahay hebel bad dilay ama hebel ba kama ku timi waxa umada Soomaaliyeed oo dhan loo sheegaya in ninka laga soo bixiyo lacagta waxa lama yiraahdo nin meel ku tirsan yahay
uu ku tiirsan yahay oo lagu og yahay marka dadkaas baa ka bixinaya taa marka laga imaado Sharmabay account baa loo furay akoonkaas aba lacagta gaarsiinaysaba 20 marka halka la gaarsiiyo xitaa hadaan tulkiisu halka loo baahnaa inay gaarsiinin oo 30 keenaan looguna daro 20 ka waa konton gabadhaba inta macnaha magtu way ka yartaan filay kontonka halaad way ka yiriin bad 60 iyo 78 way ka yartay waa 40 ilaa 30 wixii xaga ka xiga meelahaas way marka inta yey ka badanba waa laga bixinayaa balse wixii waqti iyo process iyo nidaam ay qaadanaysaa xitaa anu mar baan waxaan odayaasha yara dhageystay garanaysa yara dhigmaalay marka wax la bixinayo waa tabti dawladda oo kale qabiilku macnaha meel bay soo maraysaa akoon baa laga soo saarayaa waa la soo saxiixayaa meel baa lagu qorayaa show tol kastaaba sanad bixisaa xirsiga dawladda sameeyaan waxa sanad kore naga baxay intaas ku baxday diyo intaas ma ku baxday intaas xitaa geeriyaha show xitaa lacag baa la bixiyaa geeridii hebel iyo hebel ku timi mi intaas mid walba ku baxday inta xabaal qodiyo maxay baa ku baxay inta mid maalin dhaw safar iyo qadar ku dhacday inta ku baxday inta jaamacad iyo ardayba wax lagaga bixiyay nidaamka ka salamariya marka qabiilka ama qabyaalada ceeb laakiin qabiilku ceeb maaha marka qabiilku in dadka isku qabiilka ahi macnaha ay isku xidhnaadaan isku duubnaadaan midba midka kale uu kabo qabiil kasta mid kale uu soo kabo ayaa qurux laakiin in qabyaalada lagu dhaqmo oo qof ku yasto oo qof ku cadaadiso oo qof ku gujayso ayaa ceeba waxa weeye daahir cali sawna weyn arki doona haduu leeyahay wax baa la bixinaya kole 2 cisho 3 cisho way qaadanaysaa hawl yar fudud maaha waa hawl la doonayo si qurux badan inta wax loo soo qaado si qurux badan loo kala gudoomo oo si qurux badan oo ila wada geeriyeysan iyadoo tacsidii iyo geeridii loo muujinayo nidaam lagu bixiyo way kala duwan tahay markuu ninku nin dilo iyo way kala duwan tahay markay meesha qadar timaado haduu ninku nin bareer u dilo macnaha lacagta waxa lagu kala qaataa faad laag hiifid jaafaajug laakiin marka meesha qadari ay timaado labada qaybood qaybta wax ka dhinteen iyo qaybta macnaha dhimashada sababatay ee sababteeda lahayd labada qayboodba way isku yimaadaan ayagoo labaduba geeriyeysan oo xumaan isku haynin ay isku yimaadaan because qofna ma oranayo waa qadar laakiin marka kale hana loo dilayo qaar leeyihiin baa la oranayaa jooga waxba loo dilmay waan idin afina keena oo tolki qayb kamida ay cabulinaya laakiin tan waa la isku wada raacaa oo cid diidaysa qadarta ma jirto marka insha Allah Sharmabay waa la iska soo dayn doonaa labada qaybood macnaha qaybta inta ka dhimatay iyo qaybta Sharmabay magaranaysa uu ka soo jeeday maxay ahayd qadartan iyaguna runtii laga rabo dawsaarideeda looga fadhiyaana macnaha iyaguna way soo socdaan si qurux badan insha Allah way ka yeeli doonaan wuxuu inooga baahan yahay walaalkeen duco sidoo kale wuxuu inooga baahan yahay garab istaag akoonna fayga baa jira oo buga oo dadka qaar lala daba cararayo dadka qaar baan arkayay dadka qabyaaladeen iyo dadka fogeynaya macnaha anigu daahirna isku qabiil ma nihin shamana isku qabiil ma nihin haddaan isku qabiil nahayna anigu ma tirsanayo oo ma sheeganayo haddaan isku qabiil nahayna ma caayayo oo ma fogeynayo haddaan isku qabiil nahayna kama soo dhaweysanayo qof kale aniga walaalkayna han noqde haduu dulmi wado walaalkayga ila dhashana han noqde wani wanu sheegay madaxna wani ka dulmigiisa ka qabta hadana walaalkay runta u sheegi kareyna wanaadar waan iska aamusayaade waxa ugu daran walaalka qaban waxa ugu daran walaalka adoon qaban kareyn hadana sii hadal marka anigu haduu walaalkay qalad keeno waan qaban hadana qaban kareyna ma sii hadlayda waan iska aamusi magaranaysa because de qalad uguma hiilinayo labada qalad ugu hiilina hadana qalad ka qaban kareen anoo iska amsaay dhaanta marka aniga labada qofba waa laba qof runtii siman marka ka eegayo ka Soomaali ahaan ka deem garanaysa deegaan ahaan inta baan ka eegayba ma sha Allah dad wada dhashana weyn nahay macnaha Sharma haduu maanta xumaan sameeyo bulsho iyo deegaan ka soo jeeda oo sumcadeedii iyo kalaamadeedii hoos u dhigay looranaya kasumir ba ka soo jeeda daahirna saasile anigana maanta saasile mid waliba wuxuu ku qurux badan yahay intaanu dadka sharaftooda dhowrin dadka sumcadooda intaanu dhowrin inuu tiisa dhowro mid qof kasta oo sharaftiisa ilaashada waxa uu ilaaliyo sharafta bulshada qof kasta oo sharaftiisa ilaalin waayana waxa uu ilaalin waayo sharafta bulshada because haddaan maanta xumaan sameeyo xumaantayda boqolaal qof bay kaga daynaya haddaan qabyaalad sameeyo qabyaalada xitaa haddii anigu nuguma yakaanayse dad baan ku kalifiyay inay qabyaalad ku dhaqmaan dad baan kibir la tagaya dad baan ku waxyeelaynaya marka markasta way qurux badan tahay in qabyaalada laga fogaado in kasto baashaasi ay noqotay xitaa sidaan ugu dhaqanno xitaa diinteena uguma dhaqanno والله بين دينتنا هذا الإلهي
kalaamka ilaahay iyo axaadiistii rasuulka intaba wallahi baan ugu dhaqmin sidaan ugu dhaqano qabiilka iyo odayada maxay ahayd qabyaalada wada iyo qurunka iyo faquuqida sidaan ugu dhaqano iyo cusurnimada wallahi inaan cid kale la dhaqamin walibana waxay nahay Soomaalideenu dadka iyagu dad iskugu daran ee iyaga laftigoodu isfogeeya ma arkaysid nin Soomaali cid kala dhibaya ama cid kale la jihaadaya Soomaali kasta Soomaali buu dhibaya ma waxaad aragtay wiil Soomaaliya oo iska eegay walaalkii walibana iska eegay kii dad ugu dhawaa waliba iska eegay kii ceesho milix ay ahaayeen marka waxa weeye media xaaladda maanta ka taagan intaan laba soo gaadhin ba Yahuudi lahayd ama dadkii lahaa ama gaaladii lahayd intaan laba soo gaadhin ba inaga iska saaraynaba mid report garaynaya mid eriyanaya mid channelkiisa mid ka arqaladaynaya mid kala dhistay ku dhufanaya mid horumarkiisa mid kala ka xun mid qabiyaalad magaalada u gelinaya macnaha inaga ba media iska saaraynaba intaan la soo gaadhin ba gaaladii lahayd ba marka waxa weeye inaan hoos isku eegno waalnimada laga shaqeeyo dadnimada laga shaqeeyo faqiiqadana aan iska deyno waxba lagu celcelin maayo intaan afka ka leeyahay boqolaal kale waad garanaysaan waa la isin dhatiraya abtiyaan la isin dhatirina indhaha la furtay baan leeyahay waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu baan dilay